Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal kale. Free domain name iyo free hosting anagoo adeegsanayna ayaa waxaan bilaabi doonaa taxane aan ku baranayno WordPress. Sidaad wada aragteen YouTube waxaa ka buuxa casharaan WordPress ah isla markaana lagu leeyahay hostingka iyo domain name-ka iibso oo $10 ama $20 ka bixi. balse muuqaalkan aan kugu tusi doonaa sida aad ku heli karto free domain name, free hosting isla markaana WordPress-ka ugu install gareyn karto. taxanahan markaa haddii aad ka heshaan dabcan helitaankiina waxaan ku qiimeyn doonaa like-ta iyo commentiga iyo falcelintiina. waxaan kasoo sameyn doonaa taxane dhammaystiran oo aan iskula baranayno WordPress-ka waxa uu yahay themeska iyo pluginska ugu fiican, Elementor page builder gaar ahaan Elementor Pro-ga oo isagoo lacag ah balse aan idin siin doono isagoo cracked ah oo si free aad ku isticmaali doontaan. wax walba course-kan aan ku isticmaali doono waxay noqon doontaa free. iyo sidoo kale WordPress security iyo waxyaabo kale badan iyadoo qeybaha dambe ee taxanahan aan isla dhisi doono systemyo. balse waxyaabahaas oo dhan waxay ku xiran tahay qaabka aad u garab istaagtaan muuqaalkan ama aad u codsataan ee course-kaasi. okay, ugu horreyn horta waxaan isla eegaynaa waa maxay WordPress sharaxaadiisa haddii aan soo koobo waa software loo sameeyey in web designersku ay ku sameyn karaan website iyagoo wax ka hor aan qoraynin ama 95% wax ka hor aan qoraynin. shanta soo harteen waxa la oran karaa qofka waxa wanaagsan inuu yaqaano PHP iyo inta yare basic ah HTML, CSS iyo JavaScript. sababtoo ah luqadaha imkaan kuu sheegay sida PHP oo kale ayuu ku dhisan yahay WordPress. sidoo kale WordPress wuxuu ku shaqeeyaa laba waxyaabood oo la kala yiraahdo themes iyo plugins. themesku waa design-ka website-ka ama qaybta kuu muuqata. sidoo kale themesku waxay leeyihiin category kala duwan. tusaale ahaan waxaa jira themes loogu talagalay blogging oo kale ama loo design gareeyay bloggingka, themes loo design gareeyay e-commerce websites-ka iyo themes loo design gareeyay e-learning systems oo kale iyo themes kale aad u badan oo waxyaabo kala duwan loo design gareeyay. marka themesku waa design-ka ama qaybta hore ee website-ka, pluginskuna waxa weeyaan waa functionality-ga website-ka ama qaybta dambe ee back-end-ga website-ka. tusaale ahaan marka aad doonayso inaad login kusoo dirto website-kaaga waxaad adeegsanaysaa plugin. marka aad doonayso inaad ka dhigto website-kaada mid wax lagu iibin karo online ama lacaga online wax lagu iibsan karo waxaad adeegsanaysaa plugin WooCommerce la yiraahdo iyo payment methodska pluginska loo yaqaano. sidoo kale marka aad doonayso inaad security wax kusoo darto waxaad adeegsanaysaa plugin. marka pluginku waa functionality-ga WordPress-ka. labadaasi waxyaabood ayuuna ku shaqeeyaa. markan waxaan isla eegaynaa domain name-ka iyo hosting-ka waxa ay yihiin. domain name-ku waa magaca website-ka sida tusaale ahaan youtube.com, magacaaga hebel.com ama agenjr.com oo ah blog aan leeyahay oo imkaad booqan karto. marka waa magaca website-ka. halka hosting-kana uu yahay server online-ka aad ka kiraysanayso isla markaana faalasha website-kaada aad ku upload garanayso dadkana hadhowdii ay ka daalacan karaan. marka hosting-kana waa halka uu website-kaada ku hostigarisan yahay. okay, markan waxaan la eegaynaa free hosting-ka iyo free domain name sidaan u heli karno. waxaan adeegsan doonaa shirkad la yiraahdo isticmaali doonaa shirkad la yiraahdo Infinity Free. browser-ka aad ku qori kartaa infinityfree.net kadibna wuxuu ku keeni doonaa page-kan. marka imika page-kan haddii xagga hoose aan nimaano sida aragtaan oo isku xayeysiinayaan, laakiin xayeysiintan imika meesha ku qoran oo dhan waxyaabahan uma bixiyaan oo isku xayeysiinayaan. website-kana limitation ayuu leeyahay xagga dambe aan ka arki doono. ugu horreyn markaa stepka koowaad aad u baahan tahay inaad qaado waxa weeyaan inaad ciwaan ku yeelato website-kan. sign up ayaad oranaysaa, formkan ayuu ku keeni doonaa kadibna formkan ayaad buuxin doontaa. emailka markaa ama gmailka aad isku diiwaan geliso ayay kuugu diri doonaan linkiga verification-ka si ay u hubiyaan inaad emailkan aduu leedahay ama uu shaqaynayo. markaad soo verified gareyso markaa waxa uu keeni doonaa qaybtan limitationka website-ka. marka haddaan u nimaano waxaa ka mid ah kow in 3 website ka badan aadan ku dhisi karin ama aad ku hostigareyn karin shirkadan. haddii aad 3 website ka badan aad u baahatana ama email kale aad isticmaalaysaa ama waxaad sameynaysaa website-yada mid ka mid ah ama laba ka mid ah ayaad deactivate ka dhigaysaa. sidoo kale limitationkooda waxa ka mid ah waxay ku siinayaan subdomain name. subdomain name marka waxa weeyaan waa domain name magacooda ay raacinayaan. tusaale ahaan magaca website-kaaga ay xaggadan waxay ka raacin doonaan magacooda.com. marka imika qaybtan hoose haddaad eegtaan waxaa ku qoran 0/3 oo macnaheedu tahay 3 app ee limitka ahaa waxba weli maan sameyn oo waa 0 wax application maan sameyn. marka ugu horreyn marka account aan sameysanaynaa waxaad oranaysaa create new account kadibna formkan ayuu kuu soo saari doonaa. formkan ayaad buuxinaysaa. marka waxa ugu horeeya waxa weeyaan waa magaca website-ka ama domain name-ka. sidaad wada aragtaan marka domain name-ku waxay raacin doonaan intan option oo dabcan magacyadoodu ay ku jiraan magacyadooduna ah. markaan waxaan ka dooran doonaa midkan magacooda .infinity free app-ka ayaan dooran doonaa kadibna waxaan oran doonaa check domain name. sidaad aragtaan marka imika domain name-ku noo qaatay. marka kadibna waxaad buuxinaysaa formkan
oo waxaad gelinaysaa passwordka akoonkaada ku isticmaalayso. anu mid yaro fudud ayaan gelin doonaa balse aduu password adag gasho. markaa kadibna stepska imkaan u marayo ayaad mari doontaa si aad u sameyso akoonka oo dhammaystiran. okay, stepka imika intaa xiga wuxuu noqon doonaa in aan ku install gareyno WordPress inaan ku install gareyno. si aan WordPress ugu install gareyno waxaan tegaynaa cPanel haddaadan hore u maqlin waxa weeyaan ama control panelka wax loo yaqaano waxa weeyaan waa halka aad ka maamulayso website-kaaga, databaseskiisa, faalashiisa iyo waxyaabaha kale marka aad u baahan tahay oo domain name-kana ku jiro. cPanel marka ayaan taaban doonaa. kadibna marka halkan aad marayso agree ayaad oranaysaa oo proof gareynaysaa si halkan aad ugu gudubto. sabab aragtaan imika wuxuuna keenay cPanelka markaad joogto waxaad iman doontaa sectionka loo yaqaano softwareska ama software. sectionka markaad timaado waxaad taaban doontaa halkan ku qoran tahay Softaculous. kadibna wuxuuna keenay pagekan. sabab aragtaan marka imika halkan waxaa ku jira waxyaabo badan oo uu kamid yahay Joomla marka waxa weeyaan waa sida WordPress oo kale waa content management system. website-yada ayaa lagu dhisaa, web applicationska ayaa lagu dhisaa. anaga marka waxaan ku install gareyn doonaa WordPress, install ayaan oran doonaa. sabab aragtaan wuxuuna keenay pagekan. marka imika halka hoose hadaad eegtaan waxaa ku qoran HTTP. protocolka uu siiyay waa HTTPS marka kama dhigan kartid oo limitationka website-ka ay kamid tahay. HTTP-gana badanaa waa laga fiican yahay oo waxa weeyaan waa dhanka security-ga ayuu xogaa daciif yahay, laakiin HTTPS waad ka dhigan kartaa. muuqaalo kale ayaan ku sharaxi doonaa duwaa layraa sida looga dhigto. sidoo kale halkan waxaad ka dooranaysaa versionka WordPress aad ku install garanayso. dabcan versionka imika la isticmaalo waa version 6 kaas ayaan ku dayn doonaa. intan hoosena foomkan qaabkan u buuxinayo ayaad u buuxinaysaa. qaybahan waxa weeyaan waa magaca website-ka iyo description-kiisa iyo waxyaabaha kale ee aad u baahan tahay. qaybtan marka waxa weeyaan waa qaybta admin-ka oo waxaad gelinaysaa username-kaaga iyo passwordkana ka dhigo password xoogan. kadibna scroll ayaan oran doonaa. qaybtan hoose marka haddaan nimaano soo aragtaan teamska ayuu ku leeyahay. halkan teamska dooro. teamkaas aan hore usoo sharaxnayba de waa muuqaalka ama design-ka website-ka. marka midkan ayaan ku dayn doonaa oo default-ga. kadibna waxaan oran doonaa install. progress bar-ka ayaan markaan sugaynaa intuu ka dhammaanayo. okay, soo aragtaan marka imika WordPress-kan uu noogu install gareysmay. mararka qaar marka waxa laga yaabaa in waqti qaato oo hore uu kaaga soo bixi waayo. tusaale haddii aan imika ku dhufano linkiga soo aragtaan hore noogama soo bixin. mararka qaar aad waqti uu qaataa, waxa laga yaabaa inuu 24 saac qaato, waxaan laga yaabaa inuu daqiiqado yar mararka qaar kugu qaato. mar labaad ayaan refresh u diri doonaa bal haddii uu noo yimaado ama haddii kale isku soo noqon doonaa. okay, refresh ayaan siiyey markiiba hore uu iiga yimi. marka daqiiqad hataa muu qaadan. muuqaalka marka waxaan filayaa inaad ka faa'iideen ardayda gaar ahaan ay ku adkeed in domain name iyo hosting ay iibsadaan. in markaa imikaad hesheen domain name iyo hosting aad ku samayn kartaan WordPress haddii aad portfolio-haada ku darsanayso iyo haddii aad asxaabtaada la wadaagayso website-ka aad samaysayba, iyo xataa haddii aad macaamiishaada la wadaagayso mararka qaar. haddii aad markaa xiisanayso inaad soo sameeyo casharaan WordPress-a, muuqaalkan taageero buuxda u muuji dhanka like-ta iyo comment-ga ayaan ka wadaa. sidoo kalena sii share garee oo la wadaaga asxaabtaada kale. haddii aad halkan kusoo gaadhay daawashada muuqaalka aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay. tan iyo muuqaalka xiga inta ku kulmayno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.